xukuumadda Somaliland ayaa si rasmi ah u wareejisay rag iyo gaadiid ka soo baxsaday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. warkani waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayga Faisal Fifa. kadib markii bartamihii bisha August ciidamada ammaanka ee Somaliland howlgal ay fuliyeen gacanta ku soo dhigeen in ka badan 16 gaari kuwaas oo lagala soo baxsaday dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya isla markaana lagu qabtay qaybo kamid ah deegaanada Somaliland gacantana maalmihii laga soo gudbay ku haysay xukuumaddu ay waxaan si rasmi ah kala ugu wareejiyay mas'uuliyiinta dowladda federaalka dalka Itoobiya. محمد كاهين أحمد وزير كريمها جودها سوماليلاند يا جنرال سريجاس عبد الله فضل إيمان تليها جودة إذا كبوليس كسوماليلاند أي رسمي وربعين توجو صوبان لجي جديد كان زمان كان كوريجي مسؤولين الدولة الفدرال كدل كإثيوبيا أو وكيل كها سفير كدولة إثيوبيا أفضل مجال درجيس عاصمة دقيقة سوماليلاند وحنا وزير كيسدو كلا تليه سوين وجنون سودان إسكاشي جدًا كأمريكا سوتشرين كأي كده سوماليلاند يدل كإثيوبيا. ساكن مناسبة إنه هالكنو شغلنا وحويه إن حكومة الصوماليلاند أي وريتشيسو قاعدين كي لقلصوا بحصدي دولة ديغان كا صوماليات الدولة فدرال كإثيوبيا. لما الدولة دول وحكد حياة علاقات عادية ودار ومدبر عيدك بوليس كجمهورية الصوماليلاند يقول فلنا أمر كي مدحونها قرن كجمهورية الصوماليلاند مدن منصبيح عبدي waxay hawlgal balaaran iyagoo ciidamada kale amniga kaashanaya ka galeen dhammaan xadka isku xira Itoobiya iyo dawladda Soomaaliland laba baabuur waxa laga soo qabtay gobolka Awdal hal baabuur oo baskaara waxa laga soo qabtay gobolka Togdheer inta kale waxa laga qabtay gobolka Maroodijeex iyo Gibeeley gaadiidka inta ugu badan waxa laga qabtay gobolka Gibeeley marka taasi waxay muujinaysaa siday xukuumadda ama dawladda Soomaaliland uga go'an tahay xiriirka wanaagsan ka dhaxeeya dowladda federaalka Itoobiya inaan cid qori la soo gali karin hanti la galin xagga tiina guul bay ka gaareen ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ambassador Barrett Safai safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya magaalada Hargeysa ayaa dhankiisa si weyn ugu mahadceliyay madaxda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta Somaliland talaabadan ay qaadeen ay ku soo qabqabteen gaadiidka dalka Itoobiya lagala soo baxsaday. magaalada inፈልጋለን waxaan aad ugu mahadnaqaynaa buu yiri marka u horeysa shacabka reer Somaliland iyo dawladooda dhammaan siday isku kaashadeen wixii hala ka yimiday hay si fiican uga hawlgaleen dhammaantood ama ku hadlaya magaca dawladda Itoobiya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayn. daqiiqado kooban kadib madaxda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska gudaha ciidanka booliisku waxay wadajir ugu galbiyeen dalka Itoobiya gaadiidkii iyo sidoo kale darwaladii ciidamadu ay soo qabteen idana lagu wareejiyay ciidamada federaalka dalka Itoobiya. halkani waa magaalo xuduudeedka Tagwa Jaale oo u dhaxaysa Somaliland iyo Itoobiya waana halkaas rasmi lagu kala gudoomay gaadiidkaasi waxna xusitaankeeda gaar ah mudan in halkan si weyn loogu soo dhaweeyay madaxda iyo mas'uuliyiinta Somaliland iyaguna ku dhawaaqay eriyo kala duwan oo ay kamid ahaayeen gaar ahaan maanta saaka ayaan ku soo wareejinay safaaradda way nala socdaan raggii muxuu ahaa mas'uuliyiinta ahaa nagala soo wareegay haddana waxaan ku wareejinaynaa anagoo joogna dhinacii dalka Itoobiya mas'uuliyiinta joogta iyo deegaanka kililka shanaad dadka jooga waxaan sidoo kale xusitaankeeda gaar ah mudan in xukuumadda Somaliland maanta dib xuriyadoodii ugu soo celisay Ibrahim Aadan Mahad Ibrahim Saad wasiirka hore waxbarashada iyo sidoo kale Cabdi Jamaal Axmed Qolombi wasiirka hore cadaaladda ee xukuumaddii madaxweynihii hore dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar kadib markii 22 bisha August ciidamada ammaanku ay la wareegeen Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV caalamiga Somali Cable Hargeysa.